iminkana waan ku celinay waxaan leeyahay dadku golaha doorateen hortiisa kaalaya inkastoo aan arkay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda ina kan abtiga u ahay ganacsiga Muuse Salaf oo leh laabtaalax isku xisbi baan hoo kulmiye war ummadani ma aha ummad aynu kulmiye iyo wadani iyo cid u kala nahay wuxuu yiri baankii wiil raaxa joogtaa ku dabaalataa webi mubooga waqtiga dhacay waxaan jecelahay inaan xaaladaha abaaraha iyo maciishadaha kacay aan si kooban u dul istaago shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ay dalka kaga nool yihiin waxa jira xaalado iyo mashaqooyin isdul huwan oo ay keeneen abaaruhu isla markaana ay jiraan abaar baahsan oo dadka ku fiday oo saameysay nolosha dadka danyarta ah ee inta badan ku nool gobolada bari iyo galbeedka arrintaasi waxay u baahan tahay istaakulayn in dadku isku dareen noqdaan in la isku gurmado in si dhow iyo si dheerba wax looga qabto waxa taase dheer oo dalkeena haysta inay maciishadii kacday oo guryaha dadka danyarta ah barkood aan dab loo shidin taasina ay tahay mas'uuliyad weyn oo golaha wakiilada saaran madaxweynaha qaranka oo saaran qof kasta oo mas'uul ka ah ummadan oo xilkeeda u dhaartay waxaan ku baaqayaa inay ganacsatadu il naxariis leh ku eegaan dadka danyarta ah ee u baahan in maciishada loo jabiyo 30 sano kadib maaha in dhaqanadii ganacsatadii dhiigmiiratada ahayd ee hal qarni ka hor dunida laga tirtiray ay maanta kuwa la mid ah kugu dhexnool yihiin ka dhex ganacsanayaan sixirka iyo sarifkaba ku goynaya maanta oo kale waa maalintaan oran jiray ayaamuhu waa wareegto adduunyadu waa hadhguura irmaankeeda iyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto fakhrigu abtirsiima maaha haddaad amin xoolo hayso nimcada kula aabbo maaha bal daalaca ubadka jaarka agoontiya maxasta baahan bal daalaca ogadooda siduu aradku uga muuqdo damiirka haddaad axdiisa dareenka ogaalka siiso bal daalaca waad ilmayne hooyada dhaxmaha ordaysa dheeftii ubad raadinaysa alleylka madow gudaysa dhibtii abasada sharkiisa saqdhaxe uga ooli weyday markay amin duuni weydo agnaanku dareemi waayo tukaan wax amaahin waayo uurkiiyo qalbiguun ku oyda xalay toole waxaa daawanayseen mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah oo ka cabanaya maciishada waxay ahayd dareen taabanaya qof kasta oo damiir leh waxay ahayd dareen taabanaya qof kasta oo mas'uuliyad saaran tahay inkastoo aan arkay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda ina kan abtiga u ahay habroodaaganahay ganacsiga Muuse Salaf oo leh laabtaalax isku xisbi baan hoo kulmiye war ummadani ma aha ummad aynu kulmiye iyo wadani iyo cid u kala nahay waa ummad aynu mas'uuliyiin u nahay wuxuu yiri baankii wiil raaxa joogtaa ku dabaalataa webi mubooga waqtiga dhacay wixii aynu ka qabanay ee inoo qabsoomay 30 sanadood ee dawladnimadeenu jirtay marka la barbar dhigo marka baahiyaha asaasiga ah ee biyaha leh ee caafimaadka leh waxbarashada leh marka la barbar dhigo 30 sanadood aynu jirnay waxa muuqato cad inaan sidii la rabo waxaynu ugu qabsoomeen haddii dadka tabaalaysan laga hadlo macnaheedu maaha in madaxweynaha la diidan yahay macnaheedu maaha in gudoomiyaha golaha wakiilada la diidan yahay macnaheedu maaha nin xal haysta in lagu xumaynayo waxa soo dhanba waxa ka daran oo ka xumahay iyadoo xaaladaha qalafsan ee isdul hoganaya uu dalka ka jiro in golahii wakiilada ee umadu soo dooratay ee ay u dhaarteen fasax galay iyadoo fasaxaasi golahu wax tashiyaanu ka yeelan gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan ugu baaqayaa mudane gudoomiye annagoo ixtiraam iyo xushmad ku hayna waxa haboon in fasax iyo faakahaysiga waa halkii boonihe aynu kala reebno oo ummadan waxaynu haynaa waa xeerar waxaynu haynaa waa inaynu ka doodno waxaynu haynaa waa inaynu kula xisaabtano hay'adaha dawliga ah
intii aynu haynay haddii aynu cid kale u hibaynay waa yandar waxaan leeyahay golaha wakiiladu mas-uuliyadda saaran hoos ha weegaan fasaxaasi waa mid aan qaban ummadda danyarta ah waa mid aan munaasib ahayn waa mid aan xilligan ku habboonayn shakhsiyan waxaan aaminsanahay 7 bilood ee golaha wakiiladu shaqaynayay in xeerashii halkan laga ansixiyay ay badankoodu ahaayeen xeerar cididabada ka riixaso oo aanu farta u taaganay annagoon curin dareenka bulshada iyo baahiyaha jira aan ku salaynay ma dhaliilayo gudoomiyaha golaha wakiilada iyo mudanayaasha laakiin maanta ma aha maalintii aynu raaxo tagi lahayn dadkeenu iyo rafaadsan bartaasi inay dadku yimaadaan oo golaha 82 arkaan dareenkoodu waa wax weyn imikana waan ku celinay waxaan leeyahay dadku golaha doorateen hortiisa kaalaya